madashan boqoran ee bilan oo ahayd madal ay ku caleema saaraysay beel ka mid ah beelaha waaweyn ee deegaanada degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag caaqil cusub oo bedeli doona Allah u naxariistay caaqil Xuseen Digaale Yuusuf oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Hargeysa caleema saarka caaqil Xasan Muuse Yuusuf oo ah caaqilka maanta la doortay ayaa wuxuu ka qabsoomay tuulada Galbarwaaqo oo dhinaca bari kaga aadan magaalada Ceelaf Weyn waxaana ka soo qayb galay madasha lagu caleema saarayay caaqil Xasan Muuse Yuusuf maamulka degmada Ceelaf Weyn saraakiil kala duwan salaadiin ugaasiyo cuqaal siyaasiyiin dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana xafladaasi u dhacday sida tan kan lagu caleema saarayo dib wada garanaya waa Xasan Muuse Yuusuf oo gali doono booskii Xuseen Digaale Ilaahay ha u naxariistee caaqilkaas oo ay u dhan yihiin beesha Bohooda caaqil Bohooda ama caaqil Bixidaba maanta dee waa caleema saarkii caaqil Xasan Muuse Yuusuf Bulay oo aynu ku caano shubi doono insha Allah waxaan u sheegaynaa cid kasta oo dhageysanaysa caaqilkan si mug iyo miisaan leh in loo soo doortay caaqilka waxaa laga rabaa hawl culus iyo mas'uuliyad buu qaaday runtii mas'uuliyaddaana waa lagala xisaabtamaya qof walba ruuxantii anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Sanaag oo wakiil ka ah oo ina soo wakiishay munaasabadan gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan waxaan caaqil kaaga sida iyo waftigan iyo munaasabadan baan uga sida gudoomiyaha gobolka Sanaag oo hawlo shaqo ku maqan oo awgii u iman waayo ay ahayd inuu yimaado munaasabadan waxaan kaaga sida hambalyo iyo bogaadin oo ku soo diray waxaan u ballan qaaday inuu kula shaqeyn doono dhinaca nabadgelyada iyo wax kasta oo aad gobolka uga baahato waxaanu leenahay caaqil bahda dhaqanka horta ku soo dhawow awalan ku soo dhawow bahda dhaqanka marlabaadka ilaahay xilka aad qaaday ee lagu doortay ee ummaddu ku soo xushay ilaahay ha kugu asturo xilka cusub Xasan Muuse Yuusuf oo soo dhaweynaya waana u duceynaya ilaahay waxaan uga baryaa xilka loo doortay in ay u fududeeyo caaqilka waxaanu leenahay caaqil ku soo dhawow horta marka hore bahda dhaqanka caaqilkaana waxaan u rajaynayaa xilkaa loo egmaday in ilaahay ku asturo waanu idinla qaadanay beesha Bohood caaqilka ay ku soo bedeleen marxuumkii dhintay halkan waxaa lagu caano shubayaa Xasan Muuse Yuusuf Bulay oo ahaa reer soo jireena uuna bedelay ninkii ilaahay u naxariistay Xuseen Digaale Yuusuf waan soo dhawow caaqil soo dhawow dhaxana waa ka gudoonay iyaguna waa isku raacsan yihiin waxayna tuseen oo ugaasha ugu horeysiinayaan iyo jiifkooda inay isku ka raacsan yihiin marqaati baanu ka nahay markhaati waxaanu ka nahay in ninka aan loo kala hadhin oo halka caaqil buuxa ku yahay waa Xasan Muuse nin nugaaleed buu ahaa waa nin baha raacsan yihiin ilaa jiif ilaa cuqaal ilaa guurti baha waa ku wada socdaan beesha Cumar Faarax ee Bohona waxaan leenahay waa mahadsantihiin dalabkiinu waa noo yimi waana soo ajiibnay caaqilkana waa ku caano shubanay marka ugu horeysa waxaan hambaliyeynayaa oo aan leeyahay alif mabruuk Xasan Muuse Yuusuf oo aan xaqiiqdii adeer u ahay waxaan isfilayaa marka aan leeyahay aan adeer u ahay ayeydii waa in adeertay golahana ma fadhiyo maanta nin iiga dhowi marka labaad haddana waxaan leeyahay waxaan kaloo kugu hambalyeynaya farxadii ah in reerku ku soo xushay badiilkii ama bedelihii Xuseen taasuna waa mar labaad xus gaar ah oo aan kugu xusayo caaqilkaynu maanta dooranayno beesha Bohood si mug iyo miisaan leh oo midnimo ku jirto oo sharaf ku jirto oo karaamo ku jirto oo nin loo kiciyay waayeelkii iyo waxgaradkii iyo cuqaashii oo jiif caaqilkii ugu horeeyay inuu ku keeneen
sidaasuu yahay baynu ku qaadanay sidaasuu yahay buu caaqil ku yahay sidaasuu yahay buu golaha dhaqanka ku soo biiray guriga uu ka yimi waa la garanayaa wuxuu ahaa weligiiba guri aan nabad iyo caana ka dhammaan waxaynu maamuusaynaa oo isugu nimi oo karaamaynaynaa oo sharfaynaa munaasibadda caleemasaarka xasan muuse yuusuf waxaan leeyahay haddii uu xuseen baxay dagaale yuusuf daahir runtii waxaan toobiyaa la keenayaa alxamdulilah haddii xasan muuse la keenay oo aan garanayo waxaan leeyahay goobta waa soo buuxiseen waana idinla ogeyn inaad keenaysaan insha allah calooshaan ku haynay waxaan filayaana inuu yahay ayadan ku dambaabin inaad keenteen kii ku habboonaa maadaama xuseen baxay xuseenna allah u naxariisto jannadana allah ka waraabiyo caaqilka halkan lagu caleema saarayo caaqil xasan muuse yuusuf oo bedelay allah u naxariistay caaqil xuseen dagaalo yuusuf waa soo dhaweynaynaa caleemasaarkiisa gebagabadiina waxaa hadalka qaatay caaqil xasan muuse yuusuf oo ah caaqilka la doortay aad iyo aad baan dhammaantiinba idinku mahadnaqayaa sida sharafta leh ee maamuuska leh ee milgada leh ee xafladda uga soo qayb gasheen ee noo qiimayseen aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa idinka mahadnaqayaa mahadnaq ka bacdi waxaan ka gudoomanayaa saraaf warkii uu yidhi waxaan kaaga sidaa gudoomiyaha gobolka iyo isagana waan kaa gudoontay waana salaamaynaa adeerka cali cumarna ducadii duceeye waa ka gudoomanaya axmed mursal askar star t v ceelaf weyn